waxaan jecelahay inaan halka ka cadeeyo inaanay jirin haddii badmaayo cid gaar ah oo ka howlgashay inaan xisbigan ku soo biiro. waxay ka dhalatay go'aankaasi wuxuu ka dhashay qiimeyn mawduuci ah oo anigu aan sameeyey oo ku sameeyey xaaladda iyo wadciga siyaasiga ah Somaliland. inta badan Afrika ama dawladaha soo koraya xildhibaanadu ama dadka kale siyaasiyiinta ah waxa caada inay xisbiyada mucaaradka ka soo baxaan oo xisbi xaakimka ku biiraan. way yar tahay nin xisbi xaakim intuu ka baxo xisbi mucaarada gala way yar tahay. umaan gelin haddii badmaayo xisbi xaakim ugama tagin xisbi xaakimka wax kale. waxaan arkay kaalintii haddii badmaayo uu lahaa xisbi xaakimku ku lahaa hogaaminta iyo toosinta iyo tala bixinta xukuumadda inaanu haddii badmaayo haysanin. sida darteedna anigu aanan roolka ama kaalintaa waxba ka ciyaari karin. waxaan jecelaystay inaan xisbi xaakimka xisbiga mucaaradka ah ee Waddani aan ku biiro. ina dareentan kala mooyee xisbiga Waddani maan oranay waxaan xisbiga mucaaradka ah ee Waddani. mucaaradadu waxa weeye xil la siman mararka qaarkoodna ka culus ka xukuumaddu hayso xisbi xaakimku hayo. sababtoo ah xisbi xaakimku isagoo hogaankii dalka haya taladii dalka haya wuxuu gacanta ku hayaa resource-kii iyo hantidii dalka. sidaa darteed wax badan hawlihiisa waxa fududeeya isagoo adeegsanaya hantidii ummadda. xisbiga mucaaradka laakiin isagoo aan resource hayn isagoo aan hayn hanti ummad leedahay isagoo haddii badmaayo ku hawlgelaya oo shaqadiisa ku fulinaya maxaan ku rahaa qaaraan iyo tabaruc ay dadka xubnihiisu soo ururiyeen ayuu xil la mid ah ka xukuumaddu hayso wuu fulinayaa. xisbi xaakimku laba hawlood baa u yaala. kow marka ugu horeysa waxa weeye waajibkiisu inuu saxo oo farta ku fiiqo maxaan ku dhahdaa siyaasadaha khaldan ee aan danta u ahayn ee aan sharciga ahayn ee haddii badmaayo ee aan horumarku ku jirin ee ay ku tallaabsanayso xukuumaddu. haddii aanu jirin cid tilmaanta oo farta ku fiiqdaa micnaheedu waxa weeyaan xukuumaddaasi dee jar bay kala dhacaysaa taladii ummadda. marka labaad waxa weeye xisbigu inuu isu diyaariyo inuu xukunka la wareego isagoo ka dherigsan ama ay u keydsan yihiin khibraddii xukuumaddii u dhaliilayay iyo khaladaadkii ay galeen iyo meelihii ay ka gafeen iyo toosintooda waxaasoo dhan isagoo haysta inuu haddii badmaayo isu diyaariyo inuu xukunka la wareego. waxaan filayaa xisbiga Waddani labadaba waa u diyaar. markaan intaa dhaafo
maadaama aan dalkii ka imi waxaan filayaa de kulliba waxa la tuunsan yahay inaan idinka yar xoogaalsanahay oo ninka socotada hadii jeer waa la wareystaa waan jeclaa inaan warbixin guud oo buuxda idinka siiyo dalka waxaan filayaa waqtigu inuu aad iyo aad inuu ku yar yahay waxaan kaloo ogahay inkastoo aan jeclayn inaan qabaylka ku mahmaaba iska jirta caadi bartire meel lama wada joogo warna abaskuul meehed abaskuul warna isku ma seegana waxaan filayaa inaan war badani idin seeganayn hase yeeshee waan jecelahay inaan 2-3 qodob oo aan siraahdo asleeyahay waa muhiim aan ka taabto marka ugu horeysa runtii anigu dalkii waxaan kaga imi warwar xaalad warwar leh waan dareensanahay qurba joogu inay jecel yihiin in la sheego war farxad leh war wanaagsan war ka farxiya war ay ku naaloodaan hase yeeshee Soomaalidu waxay tiraa runi waa kama rays waxa kaloo jirta oraah haddii bidmaayo aan oran karo waa Ingiriis oo tiraahda ninka maxaan ku raahdaa pessimist-ka ama waa qofka had iyo jeer dayrada badan ama mutaqaana yiraahdo waxaas negative ka sheega waa nin optimist oo war haya ama xog haya xogta badan markaad hayso warwar bay haddii bidmaayo ay dhalisaa waxa soo socda ayaad duraysi kartaa meesha wajiga lagu hayo ama jaaha lagu hayo ayaad arki kartaa runtii xaaladdu ma qurux badnaa waxaana qurux badnayn dalkii waxaad moodaa inaynu dib u jeesanay waxaad moodaa dimuqraadiyaddii inay aad u daciiftay waxaad moodaa sharcigii iyo dastuurkii in laga baydhay waxaad moodaa 19 inaynu dib aynu ugu noqonnay qabyaaladii oo ay ahayd inaynu ka baxno xisbiyada u samaysanay inaynu ka baxno inay si xad dhaaf ah haddii bidmaayo wadankii iyo dadkii ay u kala qaybisay waa ogtiinoo ilaa